waxaa maanta si rasmi ah xilka lagu kala wareejiyay gudoomiyihii hore wasaaradda waxbarashada gobolka Hawd Axmed Cali Mulac iyo gudoomiyaha cusub ee haatan loo soo magacaabay Maxamed Sheekh Axmed. waxaa xafladaasi ka soo qayb galay xil wareejinta ah agaasimaha waaxidka waxbarashada gaarka loo leeyahay agaasimaha waaxda kormeerka iyo la taliyaha wasiirka wasaaradda waxbarashada Cabdullaahi Ibrahim Xaaji Xasan. dhammaantood madaxdan oo ka hadashay halkaasi ayaa hadaladoodu ku qontonsanayeen xil wareejintan. maalinta dhaweyto qofkii carabka aad iyo aad loola dhacay waxay ahayd waxaan ku dhisabsam Cabdi Aadan wasiirka maaliyadda Soomaaliland. haddaan ogahay warwarka gobolka Hawd ku hayo si uga go'an tahay wax qabadka gobolkan runtii may mudnayn luqadii lagu la hadlay waxaan leeyahay taana ugu nin gobolkiya baan ahay ana xal ka bixiyay oo waxaan ku sii tiigaalaya oo aynu sii fogeyno maaha samsmna waxaan halkan baaq uga dirayaa gobolkii waxaan ku ka soo jeedo ku soo eegay waxaanu ka filay inuu caruur haayo waliba firfircoon mudakara si fiican inuu shaqeyn jiray aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxa baanu haynaana ma jirto gudoomiyaha cusubna waxaa leeyahay horeba waad u ahaan jirtay gudoomiye rugcadaadigiisa soo rogaal cilmi la leeyahay Sheekh Maxamed oo nin weyn oo waayay 20 sano wuxuu wadaysaa waxba lagu maamulihii ama gudoomiyihii shaqadiisa ka taga macallimadiisa uu ku jiraa dad waxa nuun marjac iyo meel ku noqdaan leh intayada socotaa macallimiin waaweynaa tumaana oo inkastoo wali baan ugu ilaa hadda wax dhigo oonan macallinimadii sanadkii afartanaadna koloraan u dabaaldegay. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha cusub iyo gudoomiyihii hore ee madashaasi lagu kala wareejinayay xilka shaqaalaha gobolka iyo waxa la wareejinaya kulay iyagoo raaytino qoran ayaan shaqeynaa aniga maanta xilka la wareegay gaariga shaqeynay baan la wareegay laakiin gaariga shaqeynaya aan maanta wareejinaya anigu waxaan qaban doonaa imika ma sheegeedii ma sheegayo waxaan qaban doono ilaa aan jaamacad halka ka dhisana ilaa way dilay baa leh hagana taxay meesha gabagabadii waxaa soo afmeeray barasab ku-xigeenkii hore ee gobolka Hawd Warsamo Faarax Soomaali oo dhawaan xilka qaadis lagu sameeyay uguna mahad celiyay gudoomiyaha hore soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee waxbarashada gobolka Hawd Maxamed Sheekh Iskumaan soo gaarin laakiin Axmed wax badan buu ilayay uu dadaalay uu shaqeeyay inamada scholarship-ka uu sheegayo waartiye waagi bariyaba uu kala hinay dhamaadkii xafladaasi waxaa shahaado sharaf lagu gudoonsiiyay xubno gaar ah oo ku suntanaa horumarinta waxbarashada gobolka Hawd. Cabdiraxmaan Samriye TV caalamiga oo Cable TV xarunta gobolka Hawd degmada Bali Gobolle.